السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waa salaamaya asxaabta. Haddaad igu cusub tahay soo dhawaayaan ku leeyahay subscribe-ka ii saar. Haddaad horey iila joogtayna like-ta ha iga ilaawin. Asxaabey caawa waxaa idin wadaa qiso. Qisadan ayaa waxay ka dhacday wadankaas Bahrain. Qisadan ayaa waxay u dhaxaysaa ama ay dhex martay laba gabdhood oo walaalo ah. Labadan gabdhood ee walaalaha ayaa waxaa ku dhex dhacay khilaaf. Khilaafkaas oo sababay in ay 24 sano isla hadleen. Sidaan wada ognahay walaaluhuba way isku dhacaan laakiin khilaafkooda ma sii weynaado. Wax weynna ma sii noqdo. Laakiin khilaafka labadan gabdhood ee walaalaha ayaa wuxuu sababay inay kala maqnaadaan 24 sano. Oo waalid iyo walaal iyo asxaab iyo ehelba ay heshiisiin waayeen. Maxaa ku dhex dhacay waay labadan gabdhood? Qisada sidan ayay ku bilaabanaysaa. Labadan gabdhood ee walaalaha waxaa la kala dhihi jiray Zainab iyo Batuul. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Zainab waxay soo booqatay. Zainab waxay ahayd qof xaas ah oo carruur haysata oo magaalada geeska degan. Batuulna sidoo kale ayadana carruur bay lahayd iyo oday iyo ciyaal bay lahayd meel bay deganeyd. Way isu soo booqan karaan walaalaha sida caadigaaba. Zainab ayaa ilmaheedii soo wadatay. Waxay u timid walaasheed Batuul gurigeeda. Waxaa dhacday booqasho kadib waa aragtay labada qof oo walaalaha markay isku yimaadaan wala sheekeysanaya wax walba gabdhaha waliba akhbaar walba iska daba geynayaan. Batuul waxay tiri Zainab waxa dhacay miyaa og tahay odagayga xaajigayga hebel wuxuu ii keenay tiri katiinad dahab ah oo aad u qaali ah oo aad u qurux badan waana ku tusaaya itus ayay tiri guriga ayay gashay Batuul waxay soo saartay geedkii yaraa uu ku jiray katiinada way u keentay walaasheed waxay ku tiri ila arag Zainabey alaabtan ayuu ii keenay odagayga adugu meeshii ayaa katiinadii lagu fiirfiiriyay waxay ku tiri Zainab aad ay u qurux badan katiinadaada ilaahay odagaaga ha kuu barakeeyo nin aad maaragtaa u macquul ah ayaa ku qaba maasha Allah ayay tiri bahashii katiinadii miiskaas kale loo saaray Batuul waxay tiri soo bax jikada ii raac aan wax aan cunno aan soo qaadana soo hagaagsanay adugu jikada la aaday soo noqoshadii la soo noqday labada gabdhood ay soo noqdeenba waxaa la waayay katiinadii waa katiinada isku sababi doonta labada gabdhood ee walaalaha inay 24 sano ay isla hadleen waxaa dhacday Batuul way shakiday waxay tiri way barbaartay meel walbay ka baartay Zainab waa taagan tahay iyadana way la barbaaraysay waxay ku tiri Batuul markii dambe Zainab walaashay baa tahay lacala hadaa jeclaatay yani katiinadu waa katiinad aad u qaali ah oo aad u miisaan weyn waxay tiri hadaa jeclaatay lacala waa i weydiisan lahayd ma yihiin inaa maaragta aad shay aad lahayn ku xad gudubtid Zainab way yaabtay waxay tiri maxaa tiri ma aniga yani leedahay yani katiinad ba iga xado tuuga tahay walaashaya waxay tiri yaa kaloo joogay guriga waxaa jooga adiga iyo aniga iyo ciyaalkeena bas qof kale ma joogo katiinadan hadii taalay adugu meeshii ayay Zainab xanaaqday wiil waxaa jiray ay dhashay oo Cali la yiraahdo wiilkeeda Calina wuxuu la ciyaarayay markaas gabadheeda Khadija Batuul gabadheeda Khadija iyo wiilka ay wadatay Zainab way wada ciyaarayeen wiilkeeda ayay gacanta qabsatay ilmaheedii way baxday Zainab maalinkaas gurigeeda ka tagtay dib dambe gurigeeda ugu noqon sidaas ayaa la isku dagaalay sidaas ayaana lagu kala go'ay waxaa dhici jirtay in maaragtaa xataa waalidku ay damceen inay heshiisiyaan gabdhahan waa la heshiisiin waayay oo yani suurtagal way noqon weyday in la heshiisiyo adugu waxaa dhacday wiilkeeda Cali wuxuu imaan jiray guriga awoogiis oo hooyadiis dhalay sidoo kale Khadija oo ah gabadha Batuul ay dhashay waxay imaan jirtay guriga awoogeed hooyadeed dhalay
adugu waxaa dhacday wiilkii cali ahaa inuu gabadhii khadiijo ahayd oo habartiis dhashay oo guriga ay awoowo u ku arki jiray inuu maaragtaa ka helay. laakiin gabdhaha zaynab hadday timaado odooga aabaheeda soo booqato guriga aabaheeda hooyada timaado batuul ma imaan jirin. dee ku maqashay zaynab inay guriga joogto ma imaan jirin xiriirkiisu u xumaa darteed. sidoo kale batuul hadday maqasho inay guriga zaynab timid ma tegi jirin. laakiin caruurtu caadi. waxaa dhacday cali wuxuu imaan jiray guriga awoogiis wuxuu jeclaaday gabadhii batuul ee khadiija. adugu muddo wuxuu jeclaa maalinka dambe u sheegtay ayadoona midhaa way ka heshay. waxay ku tiri wax macquul ah maahan arrintaas sababtoo ah aniga hooyaday adiga hooyada oo ah dad walaalo ah ma wada xiriiraan oo ma wada hadlaan. wuxuu yiri wax problem ah ma lahan arrintan waxaan isku dayaynaa annagina xalino. waayahay ayay tiri hooyadaa la soo hadal ayuu ku yiri usoo sheeg ana hooyaday sidoo kale. khadiija u tagtay hooyadeed waxay ku tiri ka waran bay tiri wiilka habartay waa wiil fiican aduu ama maanta waxay tiri haba maqashin macquulna maaha inaa wax isku darsano sababtoo ah hooyadiis ma xiriirno muddo intaa la eg. waxaa dhacday cali sidoo kale wuxuu u tegay hooyadiis wuxuu ku yiri hooyo aniga ka waran aniga wuxuu dhahay guur ayaan damacsanahay inaan guursado ayaan rabaa markaan waa guursanayaa saasuu ku dhahay. waxay tiri maasha allah khayr waaye wax walbana waa diyaarinaynaa gabadha intee loo doonayaa gabar tee ah ayaa rabtaa. wuxuu yiri ma foga gabadha waxaa dhashay habartay gabadha habartay dhashay ayaa rabaa. waxay ku tiri sidaas ah waxay tiri waxaad samaysaa gabadha habartaa dhashay macquul maahan bay tiri inaa maaragtaa aa guursatid sababtoo ah hooyadeed iyo anigu ma wada hadalno muddo yani 24 sano ah ma wada hadalno ayay tiri. waxaa dhacday in maaragtaa wuxuu yiri hooyo sabab maxaa dhacay adiga walaasha idinku dhex dhacay aniga iyo khadiija waa iska helnay laakiin adiga walaasha maxaa idinku dhex dhacay hay maqashin ayay tiri gabadheedana ma ii keenaysid wax yani iskuma darsanayno reerkaas waa kaas. wuxuu yiri hooyo maxaa dhacay ma ii sheegi kartaa maadaama nin weyn ahay yani khilaafka intaa la eeg ma ii sheegi kartaa. waxay tiri haa wiilkaygiio maadaama maanta aan nin weyn noqotay waa kuu sheegi karaa inaa i fahantid baa laga yaabaa. waxay yiri maxaa dhacay waxay tiri waxaa dhacday maalinkii ugu dambeysay ee guriga habarta aan tagno ma xasuusataa. yiri haa waxaa dhacday bay tiri inay maalinkaas katiinad ee habarta yani zawjkeeda ama ninkeeda uu u keenay oo ay tustay inay katiinadii weyday kadibna aniga ay igu tuhuntay bal ay maaragtaa eedii katiinada yani inaa xaday ee kasoo qaaday oo xataa ay toos iigu cadaysay yani si cad ay iigu sheegtay. anigana arrintaas beri baan ka ahay kamaan yani arrintaas aniga beri baan ka ahay aad baan uga xumaaday walaashay aniga ma ka filayn arrintaas. wuxuu yiri hooyo sug ma xasuusataa waxaan xasuustaa buu yiri maalinkii ugu dambeysay aan guriga habar tagnay maalinkii ugu dambeysay guriga habar aan tagnay buu yiri miyay arrintaa dhacda haa haddaba wuxuu yiri hooyo waxaa dhacday maalinkaas waa anagii fadhiga farfadhinay waa idinkii wuxuu yiri jikada aaday waxaa dhacday buu yiri miiskii alaabtu ay saarneed anigu ma garanay katiinay waxay ahayd in maaragtay jiir aad u weyn uu kasoo baxay jaranjarta hoosteeda store ah inuu kasoo baxay. jiirka markuu storeka kasoo baxay inuu wax tuubarta ka qaaday oo orday aniga iyo khadiija sii fiirinay waliba anaa sii fiirshay wuxuu galay buu yiri god guriga xaggaas iyo xagga uga yaalay waxbuuna maaragtaa afka ku watay yani waxbuu saa u watay marka amay ahayd buu yiri katiinadaas habreer katiinadeeda amay ahayd. markaasi waxay tiri ma adri yani ma garanayo laakiin waxay tiri waa way dhici kartaa laakiin anigu ma xadin. adigu meeshii wiilka cali ahaa buu wuxuu u tegay khadiijo wuxuu yiri khadiijo hooyada iyo hooyaday waxaa ku kala dhacay arrintaas
waa arrin aad u foolxun inay ku tuhantay hooyo arrinta lagu tuhmay. haddana waxaan rabaa hooyaday inaa maaragta baraa'adeeda yacni inaa maaragta aan arrintaas aan meel uga soo harno, yacni arrinta hooyaday aan maaragta arrinta ka madax banaaneeyo. marka waxaan doonayaa buu yidhi inaa i caawisid gurigiina buu yidhi god saas ah oo saas ah oo saas ah oo noocaas ku yaalahaa. godkaas ayuu jiirka la galay, jiir aad u weyn la galay buu yidhi wax oo maalinkaas ah. sababtoo ah markii hooyo ay ii sheegtay ayaan xasuustay maalinkaas yaa yacni waxbuu watay jirka waana meeshaas buuna la galay. iyo yacni markii hadda hooyo ii sheegtay wixii baa maskaxdayda kusoo dhacay, marka arrintaas ha rabaa inaa gashid. waayahay ayay tiri, waxay u timid hooyadeed waxay ku tiri hooyo habaryartay dembi ma lahayn, arrinta adii habaryartay isku khilaafsan tihiin waa soo ogaaday, mana lahayn habaryartay dembi. waxayna dhahday gurigeena maaragta wiilka Cali ah ayaa u jeeday god ka mid ah gurigeena oo meel heblo ku yaala ayuu jiir maaragta yacni godkaas ayuu la galay wax wuxuu yahayna wiilka yarka ma garanayn, muuse garanayn, wuu yaraa markaas si fiican muuse garanayn, laakiin waa in maaragta godkaas la fiirshaa. see eesh macquul maaha bay tiri, sababta godkan bay tiri aabaha wuu awday yacni wuu dhisay oo yacni mutuleel ayaa la saaray darbigii, ma fahanteen, yacni marmar ayaa la maray lagu dhajiyey ama tiles ama mutuleelka u taqaanid. macquul maaha bay tiri maamadii. waxay tiri maya hooyo darbigan waa in la jabiyaa si yacni adiga walaashaa arrintiina usoo afjarmato, waa in darbigan la jabiyaa. adugu arrintaas meeshii ayaa la jabiyey, sidii ayaa la sameeyey. waxaa loo tegay bahashi oo culbadii yarta ahayd yacni ama geedkii yar boxkii yarka ahayd ay ku jirtay sideedii ugu jirta oo meesha ku jirta ayaa loo tegay. adugu sidii ayaa waxaa yacni arrintaas waxay ku fashilmatay yacni dee kolley dembiilaha asaasiga waa jiirka sax, laakiin caqliga shaqeeyey waa caqli yacni wax jecel yacni caqli wax jecel ayaa markaas yacni xasuusta soo celiyey oo ah Cali. adugu sidii ayay maaragta gabdhihii walaalaha ahaa lagu heshiisiyey ee isku yimaadeen oo Batuul aad uga shaleeday oo walaasheed ka cudurdaaratay oo tiri sorry yacni wax walbo dhacay karaa laho yacni isaamax. sidii ayay labada gabdhood walaalaha isku saamaxeen oo arrintii yacni ay maaragta dani oo walba ahayd. sidaaduna daniga wax wanaagsanba ma ahan oo daniga wax fiican ma ahan, yacni anaga diinteena daniga meesha ka joogto ogtihiin yacni daniga ma fiicna, inaa qof danisid ma fiicna, waaba dembi. adugu sidii ayaa gabdhihii Zaynab iyo Batuul ku heshiiyeen labada gabdhood walaalaha ahaa. sidaas ayaana Cali iyo Khadiijo maaragta ayagana ku midoobeen oo waa la isku soo doonay. sidaas ayaana maaragta reerkaas yarka lagu dhisay. alxaasil qisadeena caawa intaas ayay ku eg tahay. qisadan qisa lamid inta iskaga imaanayna asxaabteyda waxaan idin leeyahay fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.